Ciyaartii ciyaaraha gobolka Togdheer guddida dib u dhiska iyo ballaarinta tarabuunka garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco. Ciyaartoydii hore ee gobolka Togdheer qurba-joog waayeel waxgarad xildhibaano warbaahinta kula hadlay gudaha garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burco ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Burco qurba-joog iyo qolqol-joogba faray inay ka qayb qaataan ballaarinta tarabuunka garoonka kubadda cagta ee Alamsey Stadium ee magaalada Burco oo waqtigan ah mid ay baahi weyn u qabaan dadweynaha daawada ciyaaraha ka socda garoonka Alamsey Stadium maadaama uu waqtigan yahay tarabuunkii hore mid cidhiidhiya oo dadka wada qaadi karin. Isduwaha wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Togdheer Cabdikariin Yuusuf Cabdiraxmaan, ciyaartoydii hore ee gobolka Togdheer xildhibaano waayeel waxgarad halkaasi ka hadlay ayaa bulshada ugu baaqay in si mug iyo miisaan looga qayb qaato dib u dhiska iyo ballaarinta tarabuunka garoonka kubadda cagta ee Alamsey Stadium oo waqtigan ah mid baahi weyn loo qabo. waxaanu joognaa garoonkii Alamsey Stadium Burco oo ay ka bilaabmayso haddii la raalli ka noqdo ballaarinta tarabuunkii hore ee Alamsey Stadium. tarabuunkaasoo la dhisay 1972 konton sannadood kadibna maanta ay bulshadii reer Burco ama reer Togdheer reer Somaliland ay u tashanayaan inay kordhiyaan 40 mitir oo ballaca inay ku kordhiyaan. halkan waxaa wada jooga dhammaan sportiskii hore guddidii hore qurba-joogtii gobolka Togdheer baagii saxaafadda waxaale aad bay ugu mahadsan yihiin. maanta waa maalin ay Burco ay isu tashanayso. xaaji faaraxna wuxuunbuu hormuud iyo nagu yahay iyo dee tusaale wanaagsan wuxuu raggii ka soo shaqeeyey jaamacad mashruuci weynaa jaamacadda Burco lagu reer Burco ku dhisteen bridge-kii deera Burco dhakhtarkii maandhee tanna isagun baa nagu hogaaminayaa. faarax yuusuf nuur waxaan leeyahay waa tallaabadii dee uu qaadi jiray unbu maantana annagana uu nagu tababaray. aad baan ugu ammaanayaa faarax, waxaana leeyahay ilaahay garabkaa gabay aad gobolka u qabatay. intii kale reer Burcaan waxaan leenahay waa ka soo qayb qaata. garoonkeennu wuxuu kaga hadhay garoomada kale markastoo laysaa tartan ku qabto garoonka Burco tarabuun mala qiimaynta koowaad la sameeye weeye. waa nasiib darro 50 sannadood kadib maanta in aynu weli sidii nahay. waxaan leenahay reer Togdheer waynu ku eedaysanahay aynu dadhiisha guntiga iskaga dhigno aynu ka qayb qaadno ballaarinta. waxaa halkan aynu maanta joognaa waxaa weeyaan gobolkii Togdheer garoonkii magaalada Burco Alamsey Stadium. haddaanu nahay injineerinta hawshan waday horena u waday iminkana isla insha allah wada wixii aad ka gaari kartaanba. waxaan iminka ku kordhin doonaa insha allah ilaa 40 mitir dhinacna 7 mitira oo aan ugu talagalnay inuu qaado tarabuuna 1500 oo qof ilaa 1800 oo qof. waan u mahadnaqayaa dhammaan guddida iyo ugu horeeyo isduwaha wasaaradda ciyaaraha ee gobolka Togdheer. ugu dambeyn waxaan fariin u dirayaa bulshada gobolka Togdheer, ganacsato, qurba-joog, siyaasiyiin, cid walba oo gobolka Togdheer u dhaqdhaqaaqay inay ka soo qayb qaataan hawshan. ka gole deegaan ahaan halkan lacag baanu kaga ballan qaadaynaa, ka shaqsi ahaanna lacag baanu kaga ballan qaadayaa. ka gole deegaan ahaan waan isku noqonaynaa, guddidii fulintaa la tashanayaa. lacag wanacan baan maamulka gacanta usoo gelin doonaa haddii ay ka dhigo ama 20 kun ha noqoto ama 30 kun ha noqoto ama 15 kun ha noqoto. lacag wanaagsan oo ka gole deegaan ahaan aanu budgetka dowladda hoose ugu darnay ayaan haddii lagu koron yahay gacanta usoo gelin doonaa. aniga aadan xuseen maxamed ahaan horta marka ugu horeysa $1 kun baan ka ballan qaadayaa jeebkayga ah. waa qodobka labaad halkaa dhagaxdaa yaalla magaalada Burco dhagaxan waddo kasta xidhay ee islaan kasta gurigeedu ku horgoysay bunakeedka ninka guriga dhistay kaga hortegay ciidda ninkas guriga dhistay kaga hortegay ballan waxaa ku qaadaya inta soo guro weyna halkeena aynu dhammaystiranno. annagu ka qurba-joog ahaan waxaanu ballan qaadaynaa in aanay waxba nagu baaqan. weliba khaasatan anagu qolada North America waan ka howlgelayaa. waxaanan halkan ka ballan qaadayaa insha allah inaan 500 ee u horeysa aan anigu maanta galabta aan bixiyo 500 aan bixiyo wixii dambana aan ka soo kordhiyo. ganacsata ahaan anigu ganacsade Musaacad Cabdiraale la yiraahdaa shirkadda Toyota Spare Partner ka milkiila
إن شاء الله وأحنا كوبا نقاري كل واحد وين ما هو حين كل وقت دراسي وسجاش كنا $1 بقول كل سنة هذا عادل النهاية إنه يوحى عينه قارن نبغى ونس أنا كنت $1 بنا قارن تقارن يا بس سيدات الناس سجال بقى هراي غير أو من تسوي كذا شو تاني سيدات الناس سجال من أوقاتها كانوا سجاش كنا وأنا كل ما هتسيء يسدوه هدوس سيدات ما عرفتي تين وصوص عليه ووحوي عادي وينته marka waxaanu taageeraynaa marka hore anigu leader baan idinku ahaynaya xagga odayaasha loo tegiyo waxyaalaha waxba jiri maayo haddayna gacmaha isqabsan oo israacin oo guddi ka samayn oo matana ceeb walba isla taagin iyo waxba jiri maayaan marka anigu taasaan leenahay iskaa wax qabso way nagu dhamaanayaan in yar nagu dhamaanayaan taaynu dadaal aad baan u soo dhaweynayaa guddida waxaa kale idin sheegaya kale cabdikariim muraad ninka la yidhahdaa waa nin aad u hoodo badan gobolka markay tahay anugu ku garaacsaday sigoo geesboortiska ku dhex jira weliba waan kaga tegay sigoo ku jira haddana wuu ku jira waxa weeye wax kastoo qabanaya wax hormin ahaan oo gobolka anfacaya gobolkaan uga tagaaya waa taariikh muuqata isaga laftiisa waxaa leenahay xusno mahad soomane warbaahinta qaranka Somaliland burco